بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wiil derbi jiif ahaa oo aasaasay shirkadda ugu caansan moodelka ama fashionka waa qiso dhiirigelin leh oo ku saabsan wiil sabool ah oo derbi jiif ahaa balse ku dhiiraday inuu riyo weyn yeesho kadibna u rumeeyo riyadaas wiilkan yar wuxuu ka soo jeeday qoys sabool ah aabihiisu wuxuu ahaa beeraley hooyadiisana waxay iibin jirtay koofiyadaha wuxuuna noloshiisa ku bilaabay isagoo shaqooyin yaryar ka qaban jiray waddooyinka magaalada Paris ee waddanka Faransa inkastoo bilowga noloshiisa ay ahayd mid aad u adag haddana marnaba ma uusan ka harin riyadiisa inuu rumeeyo wiilkan yar magaciisa waa Louis Vuitton ninka aasaasay shirkadda maanta loo yaqaano Louis Vuitton waa mid ka mid ah shirkadaha ugu caansan uguna qiimaha badan dhanka modelka iyo fashionka maanta shirkadda Louis Vuitton waxaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay shirkadaha ugu qiimaha badan dunida qiimaheeda suuqa maanta waxaa lagu qiyaasaa inuu gaaray ilaa iyo 304.49 bilyan oo euro ah taasoo u dhigantay ka badan 330 bilyan oo dollarka Mareykanka ah qisadan waa tusaale cad oo muujinaysa sida dadaalka riyada iyo adkeysiga ay qofka u gaarsiin karaan guulo waaweyn xitaa haddii uu ku soo koray nolol adag intaan bilaabin qisadan maanta ka hadlayno haddii aad nagu cusub tahay fadlan janaalka subscribe noo saar haddii aad hore noola joogtay oo aad ka mid tahay asxaabtii hore fadlan fideoga like noo saar siina share garay si asxaab kale ugu faa'iidaystaan mahadsanidin qisadeena maanta waxay ka soo bilaabatay tuulo yar oo ku taala bariga Faransiiska qarniga 19aad sanadka markuu ahaa 4 bisha Agoosto 1821 Louis Vuitton wuxuu ku dhashay tuulo yar oo ku taala waddanka Faransiiska hooyadiisa waxay sameyn jirtay kana shaqaysan jirtay koofiyadaha ragga iyo dumarka halka aabihiisa uu ahaa beeraley Louis Vuitton marka uu jiray 10 sano hooyadiisa ayaa geeriyootay aabihiisana wuxuu guursaday habeenay kale oo Louis si xun ula dhaqmi jirtay marka uu 3 sano eedadiisa la noolaa waxaa sii xumaaday xiriirka ula lahaa eedadiisa wuxuuna dareemay riyadiisa aysan tuuladan ugu rumoobi karin isagoo aan ku qanacsanayn nolosha tuulada iyo xiriirka adag kula lahaa hooyadiisa labaad Louis wuxuu go'aansaday inuu safro caasimadda Paris isagoo markaas da'diisa ahayd 13 jir oo kaliya safarkiisa wuxuu ahaa mid aad u adag sababtoo ah ma ahayn safar uu gaadiid u raacayo waxayna ku qaadatay in ka badan 2 sannadood Louis inta uu waddada ku jiray ma aysan wax lacag ah wuxuuna nolol maalmeedkiisa ka raadsan jiray shaqooyin kala duwan sida farsamada alwaaxda rarista alaabta iyo shaqooyinka la midka ah sanadka markuu ahaa 1837 Louis wuxuu soo gaaray caasimadda waddanka Faransa ee Paris nasiib wanaag wuxuu la kulmay farsamayaqaan caan ah oo ku takhasusay farsamaynta iyo hagaajinta boorsooyinka ama shandadaha fashionka xilligaas farsamadaas waxay ahayd xirfad aad loo qiimeeyo qofkii si wanaagsan u bartana meel fiican ka gaari karay halkaas ayuu ka shaqo bilaabay wuxuuna caan ku noqday xirfadda farsamaynta boorsooyinka tayada sare leh dadaalkiisa fijignaantiisa iyo hibadiisa farshaxanimo wuxuu ku kasbaday magac iyo kalsooni badan wuxuuna kasbaday macaamiil aad u fara badan macaamiishiisa waxaa ka mid ahaa qoysaska boqortooyada Faransiiska markaasi jirtay sanadkii 1853 waxaa loo magacaabay inuu noqdo sameeyaha boorsooyinka gaarka ah ee boqorada Faransiiska aasaaska shirkadda Louis Vuitton sanadkii 1854 Louis uu guursaday wuxuuna isla sanadkaas magaalada Paris ka furtay dukaan asaga u gaar ah oo lagu sameeyo laguna naqshadeeyo boorsooyinka maadaama uu helay dalabka ugu sareeya magaalada taasoo ah in boqorada magaalada uu sameeyo boorsooyinkeeda muddo gaaban ayuu wuxuu ku helay macaamiil aad u fara badan wuxuuna sameeyey faa'iido aad u badan dukaankii yaraa wuxuu u bedelay shirkad weyn oo ugu magac daray magaciisa asalka ahaa ee Louis Vuitton sanadkii 1858 wuxuu soo bandhigay boorsooyin leh naqshado cusub oo fashion ah oo aad ugu duwan boorsooyinkii hore kuwaasoo macaamiisha si aad ugu heleen si waali ahna u gateen guushan degdeg ah ayaa keentay inuu balaariyo ganacsigiisa sanadkii 1859 Louis wuxuu go'aansaday in shirkadiisu uu furo faracyo cusub si uu ugu adeego macaamiisha sii badanaysa wuxuuna faracyo ka furtay magaalooyin u dhow caasimadda Paris taasoo ka dhigtay shirkadiisa mid si xoogaysanaysa oo sal adag ku yeelatay gudaha Faransa oo dhan talaabadan balaarinta waxay ahayd tiir muhiim u ah kobaca shirkadda Louis Vuitton taasoo ugu dambeyn u horseeday in magaca shirkadda uu noqdo mid dunida oo dhan laga yaqaan inta uu ganacsigiisa kobcayay wuxuu la kulmay caqabado badan sida dagaalkii Franco-Prussian ee dhacay sanadkii 1870 ilaa 1871 kaasoo sababay in qaybo ka mid ah faracyada shirkadda in la burburiyo si kastaba ha ahaatee wuxuu dib u dhisay ganacsigiisa wuxuuna sanadkii 1872 soo bandhigay nashqad cusub
taasoo noqotay astaan u gaara shirkadiisa. ugu dambeyn wuxuu xaqiijiyey riyadii uu yaraantiisa lahaa, shirkadiisana waxay ku fiday caalamkao dhan. Louis Vuitton wuxuu geeriyooday 27 Febraayo 1892 isagoo 70 jir ah, waxaana xilkiisa la wareegay wiilkiisa Georges Vuitton, wuxuuna noqday hoggaanka shirkadda. Sanadkii 1896 Georges Vuitton wuxuu soo bandhigay borograam cusub, wuxuuna u sameeyey loogada caanka noqota ee LV. sanadkan hadda ku jirno 2025 shirkadda Louis Vuitton waxaa qiimaheeda suuqa lagu qiyaasaa ku dhawaad 304.49 bilyan oo euro ah, taasoo u dhiganta in ka badan 330 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. shirkaddan waxay qayb weyn ka tahay shirkadaha ugu waaweyn ee soo saara agabka fashionka sida boorsooyinka, dharka iyo waxyaabaha la midka ah. Pietro Piccari ayaa ah agaasimaha guud ee shirkadda tan iyo sanadkii 2023, isagoo horumar ku sameeyey isdhexgalka bulshada, farshaxanka iyo modelka si loola jaanqaado jiilka cusub. Mr. Piccari wuxuu sidoo kale xoojiyey xiriirka shirkadda ay la leedahay ciyaaraha iyo madadaalada, isagoo la shaqeeyey fanaaniin iyo naqshadeeyayaal caan ah si loo balaariyo saameynta shirkadda Louis Vuitton. Qisada Louis Vuitton waxay tusaale u tahay sida adkeysiga, hal-abuurka iyo dadaalka ay qofka ugu caawin karaan inuu ka gudbo caqabadaha nolosha una gaaro guulo waaweyn. insha allahu tacaala mawduuceena maanta halkan ayuu noogu eg yahay. intii iyo mawduuc kale, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.